salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. daawadayaashayda qiimaha badan oo meel kastood joogtaanba waxaa idin leenahay kusoo dhowaada barnaamijkeennii Global Security. barnaamijkeenna Global Security ama xasiloonida caalamka ama nabadgelyada caalamka waxaynu kaga hadlaynaa maanta oo aynu ku falanqaynaynaa waddanka Ukraine dagaalka ka taagan ee dhex maraya waddanka Ruushka ee ka mid ah wadamada awoodda waaweyn leh ee koonkan maanta jira iyo waddanka Ukraine oo ah jaarkiisa. reer galbeedku waxa ay ku fashilmeen in ay aaminaan xaqiiqada maanta jirta isla markaana ay garan karaan waxa maanta ka socda waddanka Ukraine waxa ka dhalan kara ee xaqiiqada ah. waxaynu eegi doonaa reer galbeedka dadyowga ay rumaysan laayihiin ee caalamka aqoon-yahanka cilmi baarayaasha siyaasiyiinta diblomaasiyiinta caalamka muddada dheer ka soo shaqeeyay. waddanka Ruushku waxa uu ka digayaa in ay ku soo wajahan tahay caalamka nabadgelyo darro iyo xasilooni darro. waxa waddanka Ruushku uu cadeeyay in uu isticmaali doono nuclear-ka haddii arrinka lagu sii xoojiyo oo dagaalka uu ku daba dheeraado. hase ahaatee wadamada reer galbeedka ayaa arrinka aamini lah waxna ka soo qaadi lah. Putin arrinkiisa ama waddanka Ruushka madaxweynihiisa baaqa uu soo jeedinayo wadamada reer galbeedka ee ah in ay joojiyaan hubaynta iyo maaliyadda iyo warbixinta sirdoonka ah ee ay siinayaan waddanka Ukraine si ay ula dagaalamaan waddanka Ruushka. arrinkaas inay joojiyaan ayuu ka codsaday oo ugu sheegay cod dheer iyo cod hoosaba. hase ahaatee way aamini laayihiin. taa waxaa dheer in ugu dambays bishan aynu ku jirno ee hadda bilaabantay gudaheega uu Sergey Lavrov uu ku dhawaaqay oo uu cadeeyay inuu isticmaali doono waddankiisa hubka nuclear-ka ah haddii wadamada reer galbeedku ay faragelinta ay ku hayaan waddanka Ukraine ay sii wadaan. arrinkaasina uu yahay arrin aan la dheelisan karin. haddaba reer galbeedku ma waxay sugayaan inta waddanka Ruushka uu isticmaali doono nuclear-ka ee caalamku uu baabi'i doono. waxa taa dheer madaxweynihii waddanka Mareykanka ee ka horeeyay kan hadda waddanka maamula ee la yiraahdo magaciisa Trump ayaa waxa uu ku dhawaaqay waxa uu sheegay in siyaasiyiinta maanta caalamka xukumaysa ay adduunyada dib u celiyeen muddo 100 sano ah oo ay geeyeen adduunyada xaaladda adduunyada 100 sano ka hor halkii adduunyadu taagneyd. waxa kaloo uu sheegay inay suuragal tahay in la isku isticmaalo hubka nuclear-ka haddii wadamada caalamka ragga maamula iyo madaxda maamula ay caqli ku dari waayaan arrinkaas. waxa isaguna dheer oo ka digay ninka la yiraahdo Chuck waa ambassador-kii waddanka Mareykanka u fadhiyi jiray midowga Soviet 1990kii intaanu burburin waddanka Ruushku. waana ambassador-kii ugu dambeeyay oo aan nin aad iyo aad u xoogaal ah. waxa uu yiri waxa aan ka yaabay oo aad uga yaabay waddanka Mareykanka iyo waddanka Ruushka waxa ay ka talaabsadeen buu yiri oo ay ka boodeenba dagaalkii qaboobaa ilaa ay u eegyihiin inay rabaan inay bilaabaan dagaal dhab ah oo dagaalkii saddexaad ah. waxa uu yiri dagaalkii qaboobaa markii aan anagu joognay labada waddan waxay u wada shaqayn jireen si dhow oo hadda ka dhow waxaana iska ilaalin jireen inuu dhex maro khilaaf keeni kara in dagaal weyni uu dhex maro. waana tii markii dambe keentay in waddanka midowga Soviet madaxweynihii Mikhail Gorbachev uu baabiiyay oo uu soo reebay waddanka Ruushka oo kaliya. waxa isaguna tan iyo 1999kii ka digayay in wadamada reer galbeedku ay wadamadii uu sii daayay waddanka Ruushku ay la xulufaystaan aqoon-yahanka weyn professorka weyn ee loo yaqaano Professor John Mearsheimer oo ah professor wax ka dhiga jaamacadaha caalamka ee waddanka Mareykanka isla markaana qoray buugaag fara badan. waxa uu ka digay in wadamada reer galbeedku haddii ay la xulufaystaan wadamadii waddanka Ruushku uu fasaxay ay taasi keeni doonto in waddanka Ruushku uu isku dayo in uu dagaal ku soo qaado wadamadaas khaasatan waliba Ukraine. waxaanu eedda dhakada ka saaray wadamada reer galbeedka oo isku dayay inay waddanka Ukraine ay la xulufaystaan.
aqoonyahanka ka digay waxaa ka mid ah aqoonyahanka ku taqasusay cilmiga luqadaha ee magaciisa loo yaqaano Noam Chomsky oo sheegay in wadamada reer galbeedku ay Ukraine la xulufaystaan ay tahay arrin khatar ah isla markaana kor u sii qaadi karta in adduunyada uu ku soo wajahan yahay suurtagalnimada adduunyadu ay ku gali karto dagaal saddexaad ahna ta keentay in waddanka Ruushka uu Ukraine toos u soo galo oo uu dalkii ka dhigo wax baaba'ay. haddaba siyaasiyiinta reer galbeedka ee maanta xukunka haya waxay u eegyihiin kuwo aan rumaysanayninba baaqyada ka soo yeeraya ama ka soo baxaya aqoonyahanka siyaasiyiinta iyo waxgaradka caalamka isla markaana waxay sii horinayaan dagaalka Ukraine kaasoo ugu dambays keeni kara haddii waddanka Ruushka dagaalkaas uu ku daba dheeraado inuu isticmaali doono hubka nuclear-ka iyo kimikada iyo biologicalka taasoo xaaladda ay sii horinayso NATO oo shirkeedii ugu dambeeyay ee sanadka 2022 ay galeen soo saaray laba arrimood oo ay rabaan in ay kaga jawaabaan haddii waddanka Ruushku uu isticmaalo nuclear ama hubka biologicalka ama chemicalka labada qodob oo ah waxay yiraahdeen waddanka Ruushku haddii uu isticmaalo hubkiisa chemicalska iyo biologicalka waxaan samayn doonaa aag duulimaadada ka caagan oo waddanka Ukraine cirka ayaan ka difaaci doonaa waxaan la dagaalami doonaa diyaaradaha dagaalka ee waddanka Ruushka haddii uu qodobka labaad ee ay soo saareen waxa weeye haddii uu waddanka Ruushku isticmaalo hubka nuclear-kana dagaalka si toos ah inuu galay bay yiraahdeen iyagoo oo u sababeynaya haddii waddanka Ruushku uu nuclear ku rido waddanka Ukraine in shucaaca nuclear-ku uu gaari doono wadamada NATO saadaradeedna ay la dagaalami doonaan hase ahaatee waxay tijaabiyeen samirkiisa laakiin kuma dhacaan inay hub nuclear u isticmaalaan waddanka Ruushka sababtu maxay tahay waddan hub nuclear haysta haddii aanu u isticmaalin waddan kale oo nuclear haysta hubkiisa lama isticmaali karo saadaradeed waddanka Ruushku waxa uu isticmaali karaa hubkiisa nuclear-ka waddanka Ukraine si uu u soo afjaro dhibaatadan waa suuragal iyaga maadaama aanu u isticmaalinna uma isticmaali karaan because haddii ay u isticmaalaan isaguna waa isticmaali doonaa si kastaba ha ahaatee wadamada reer galbeedku waxa ay ku sifoobeen qarnigan 21aad sanadka 2022 kuwo aan xaqiiqada aaminaynin isla markaana aan saadaalin karin khatarta ka dhalan karta dhibaatooyinka iyo dagaalada ka taagan waddanka Ukraine in hub nuclear la isku isticmaalana waxay la mid tahay in qayb cadaabta ka mid ah adduunka dusheeda la keeno tan iyo kulanti dambe wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh